بسم الله الرحمن الرحيم. kani waa xiriir jabinaya xeer kasta oo ku jira buugga. qaar ka mid ah ugaarsiga ugu khatarta badan meeraheena oo aqbalaya in bini'aadam dhexda ka ahaado weligood. weligaa ha dareemo inay kugu hareeraysan yihiin libaaxyo. waxaan heli doonaa maalin kasta sidaan Kevin Richardson oo sanado badan u dulqaatay una huray inuu dhisto xiriirkan gaarka ah. balse ku heynta bahalnimada maxaabiista ayaa ah mid aad u adag. libaaxan wuxuu u baahan yahay qalliin degdeg ah. dhal dhurwaay ahi waxa uu bartay inuu 4 tacagood ku istaago sidii wiil yar oo kale. war naxdin leh oo ka soo baxay libaaxa. waxaa maragma doonto ah inuu dagaalyahan yahay. Kevin ayaa wajahaya tartan ka dhan ah waqtiga si loo badbaadiyo xoolaha iyo meesha ay ku nool yihiin. waxaan necbahay wax kale oo aan ka ahayn inaan arko meeshan oo socoto iyo xayawaanka ku jira waa nolosheeda iyo nafteeda. kani waa boqortooyada libaaxa 700 hektar oo gaar u ah duurjoogta uu maamulo Kevin Richardson. waxa ay hoy u tahay qaar ka mid ah libaaxyada ugu khatarta badan uguna naadirka badan, libaaxyada iyo 2 shabeel oo madow. 8 halamsadayaal ah ayaa halkan ku nool iyo boqorada weyn. dagaalyahanka ugu weyn waxaa jira libaax u baahan qalliin degdeg ah. Rafiki oo 5 jir ah waxa uu noloshiisa ku qaatay saantar aan faa'iido lahayn. waxa uu leeyahay ciddi ciriiri dheeraad ah. labadiisa lugood ee dambe ee aan meesha ku jirin waa curyaan u baahan in la gooyo. kalluunkii Jonathan ayaa loogu yeeray inuu ka saaro. waxaan filayaa inaad horay u aragtay. ma u yeertay? haa, laakiin kuweeda maaha kuwa isku mid ah. maahan sida saxda ah. waxay la mid yihiin sidii dun maqaarka oo kale oo ku laalaadsan yahay. cidiyaha xooggan waxaa kaliya laga helaa lugaha hore ee libaaxa, maaha kuwa dambe. waxay ugu qabtaan si daran, waxayna u adeegsadaan inay ku ugaarsadaan oo ay ku qabtaan ugaarsiga iyo inay u adeegsadaan cunida hilibka. laakiin Kevin waxa uu ka walaacsan yahay in cidiyaha xooggan ee Rafiki ee si lama filaan ah u go'i karto iyada oo ay halis ugu jirto infekshan caabuq halis ah. marka la saaro waxay rajeynayaan inay ka caawin doonto libaaxa inuu si fiican u socdo. ka hor inta aan la qalin, Rafiki wuxuu u baahan yahay in la suuxiyo. waxay isticmaaleen cirbad oo loo adeegsaday ul si ay ugu duraan daawada loona gaarsiiyo isaga oo dagaalamaya. suuxdinta libaaxa waa halis. qiyaasta sidoo kale way adag tahay in la xukumo. wax badan oo wadnuhu wax yar ayuu istaagi karaa oo goor hore ayuu soo toosi karaa. marka uu si badbaado leh u suuxiyo Jonathan, wuxuu u baahan yahay inuu si dhaqso ah u shaqeeyo. waa hagaag. marka waxaan doonayaa inaan maqaarka ka gooyo marka hore. waxaa ku jira qaar ka mid ah xididada dhiigga ee waaweyn. maya, waxaa jira xidid weyn oo dhiigga siiya maqaarka. haa, waxaa jira mid weyn oo sahayda cidiyaha laftiisa.
Waxa uu la jeedaa haddii aad qiyaasi kartid. Waxay hubinayaan in Rafiki uusan ka muuqan wax calaamado suuxdin ah haddii uu goor hore soo tooso inuu weerari karo. Iyaga oo ka saaraya ciddi labaad si looga fogaado in Jonathan uu isticmaalo tolmo gudaha ah oo uu rajaynayo inay ilaalin doonto dhaawaca inta uu bogsanayo. aad ayaad ugu mahadsan tahay qalliinka lagu sameeyay Rafiki. Waxa uu haray inuu ka soo bogsado oo kaliya. Waxay hadda u baahan yihiin inay hubiyaan in nabaradu aysan dib u furin oo aysan cudur ku qaadin. dhowr saacadood kadib qalliinka yar Rafiki oo ku dhawaad 4 cagood mar labaad ku soo laabtay hanka boqorka weyn. Waxaa laga yaabaa in madax xanuun weyn ku dhacay, sidaa awgeed Rafiki ayaa soo baxay. Run ahaantiina wuxuu isku dayayaa inuu helo nabad iyo xasilooni. Wuu socdaa si uu u eego xuduudka. Kevin asal ahaan wuxuu ka caawiyay aasaasidda boqortooyada 2005 wax soo saarka filim qiyaali ah oo daba socda sheekadii libaaxa cad. Jilayaasha filimkan ee shaqada ka fariistay ayaa hadda waxay ku nool yihiin halkan, iyadoo ay weheliyaan qaar ka mid ah libaaxyada uu jecel yahay Kevin. quudinta xoolaha iyo tiyaatirka guud waxaa ku kacaya ilaa $20,000 bishii. Dhammaan waxaa bixi jiray maalgeliye gaar ah, laakiin hadda dhaqaalihii ayaa gabaabsi noqday. Kevin wuxuu u baahan yahay in uu raadiyo hab uu seerida isku filnaato. haddii uu awoodi waayo in xoolaha oo dhan la iibin karo. Kevin helidda hab boqortooyada uga qayb qaadato ilaalinta libaaxyada ayaa muhiim ah. Maalin uu rajaynayo inuu u furo dadweynaha uu bixiyo dalxiis iyo waxbarasho cajaa'ib leh. Waa maalin kadib qalliinkii boqorka weyn ee Rafiki oo Kevin u dhaqaaqay si uu u eego. Cagabaruuryada waxay isku dayeen intii karaankooda ah inay iska bixiyaan faashadda, laakiin Rafiki nasiib uma yeelan. hadda waxay u baahan yihiin in meesha laga saaro. Kevin wuxuu leeyahay 2 doorasho oo libaaxa la mariyo, suuxdin kale oo halis ah. fahamka Kevin ee dhaqdhaqaaqa boqorka ayaa muhiim ah in la xukumo waqtiga saxda ah. 210 kilogram oo libaax xanaaqsan ah, howl sahlan maahan.